ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu u muuqdaa inaan weli loogaga adkaanin inuu u safro boqortooyada Sacuudiga. Sida aad la socotaan, madaxda shanta maamul goboleed iyo ra'iisul wasaare rooble ayaa casuumaad ka helay boqortooyada Sacuudiga, taasoo soo martay safaaradda boqortooyadu ku leedahay magaalada Nairobi. Safarkan wuxuu markii hore ku abuurmay baaq uu soo jeediyey hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, kaasoo ahaa in qaranka wadajir loogu soo duceeyo oo ay u baxaan cimro wadajir ah. Laakiin Sacuudiga ayaa u bedelay safarkii mid diblomaasiyadeed oo rasmi ah, iyadoo arrintaasi aqbalay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble. Haddaba maxaa qaldamay? Markii uu ra'iisul wasaare rooble aqbalay casuumaadda, waxaa jawaab celinta ku jirtay inay madaxda Soomaalidu diyaar yihiin 25 ilaa 26 bisha Agoosto. Nasiib darro, xilligaas lama booqan karin Sacuudiga oo madax kale ayaa booqanaysay, sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Sacuudigu waxay dalbadeen in jadwalka dib loo dhigo, xafiiska rooblena waa aqbalay sida la xaqiijiyey. Dhinaca Farmaajo, hogaamiyaha muddadu ka dhammaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku amray wasiiru dowlaha madaxtooyada Xasan Khaliif inuu warqad u diro wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga, taas oo dulucdeedu ahayd inuu safarkani xadgudub ku yahay madax bannaanida Soomaaliya. Farmaajo waxa uu diiday inuu warqadaasi qoro wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq, oo maalmahan looga shakisan yahay inuu jiro dhanka ra'iisul wasaare rooble. Sacuudigu wax jawaab kuma soo celin filla Soomaaliya sida la xaqiijiyey. Markaa kadibna Farmaajo waxaa la sheegay inuu arrintan kala hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, oo ay saaxiib yihiin dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xaqiijiyey inaanu safarkani weli baaqan, balse uu jadwalkii isbedelay. Waxay kaloo sheegeen in safarkani ay macquul tahay in la aado inta aanay bilaaban doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Farmaajo waxaa la xaqiijiyey in dhowr jeer loo sheegay in safarku aanu daarnayn waxa uu shareystay oo ah in isaga looga tashanayo. ra'iisul wasaare rooble uma muuqdo nin hadda diyaar u ah inuu Farmaajo ka shaqaysto oo safarkan lagu go'aamiyo sidii loo bixin lahaa. Si walbaba, madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha labadaba waxaa laga soo xigtay in safarku aanu weli dhiman, waxaanse weli la hubin xilliga rasmiga ah ee la bixi doono. Xilliga doorashooyinka Soomaaliya, Carabtu waa warshad soo saarta hogaamiyaal qaamaysan oo maamuli doona qaran qaamaysan, taasoo aakhirkii ku dhammaata wax qabad la'aan iyo qabyo. Maxay kula tahay adiga?